waxaa maanta xariga laga jaray ceelbiyood laga sameeyay deegaanka dalsan oo qiyaastii dhinaca bari kaga beegan magaalada Caabudwaaq una jira 22 kiiloomitir. deegaankan dalsan oo ah deegaan cusub isla markaana ceelbiyoodkii ugu horeeyay laga taagay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa socday sidii ceelkani loo sameyn lahaa isla markaana biyo looga heli lahaa waxaana maanta munaasabad xariga looga jaray kadib markii ceelkaasi laga helay biyihii isla markaana uu biyo keenay lagu sameeyay gudaha deegaankaasi dalsan. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada waxgarad dhalinyaro iyo sidoo kale ganacsato iyagu u istaagay sameynta ceelbiyoodkani oo qaalin lixaad leh uu ka qaatay sidoo kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhamaantoodba waxay sheegeen inay ceelbiyoodkan u soo mareen sidii ay uga sameyn lahaayeen deegaanka dalsan ee dhinaca bari kaga beegan magaalada Caabudwaaq muddo aad u dheer isla markaana iminka hawshooda ay soo afjarmatay. ugu horeyn waxaa xariga ka jaray Shuuka Axmed Cabdi oo ah ganacsade isagu kamid ah ganacsatada deegaanka dalsan ka hirgeliyay ceelbiyoodka isla markaana juhdi iyo qarash fara badan ku bixiyay sidii deegaankaasi ay uga marin dhalin lahaayeen in ay ka faa'iideystaan ceelkaasi oo ay dad badani ku nool yihiin deegaanka isla markaana deegaan dhawaan laga dhisay duleedka magaalada Caabudwaaq. bismillaahi raxmaani raxiim waxaa mahad ballaaran u helinayaa dadweynaha ka soo qayb galay xafladan xariga looga jareeyay ceelka laga aasaasay degmada dalsan iyadoo ay qodmihiisii iyo kaysan garayntiisii ay dhammaatay hadda ka bacdina wixii la sugaa ay tahay motoorkii iyo haamihii iyo waastooyinkii iyo bamkii iyadoo aan ka codsanayno hay-adaha ku shaqaale hawshaas iyo ganacsatada deegaanka ceelkan oo loogu tabarucayay dadka tabaalaysan oo isugu jira laba qaybood dadka barakacayaasha oo ka soo guuray meelaha abaaruhu ka jiraan iyo dadka deegaanka deganaa oo meeshan waxa weeye dad iyo xoolaha dhibaato u geystay taasoo aanu annagoo ganacsato iyo xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Cali Nuur uu naga saacidayay ganacsato aan isugu jirno aanu ceelkan waxa weeye aanu fangaraynay haatanna waxa weeye ugu furan yahay dadweynaha loogu talagalay xilligan laga bilaabo. sidoo kale waxaa uqaashi iyo waxgaradkii ka soo qayb gashay ay u direen baaq ku aadan jaaliyada ka soo jeeda deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud inay ka qayb qaataan horumarka laga sameeyay deegaankaasi dalsan waxaana ay ku baaqeen inay imika u soo diyaar garoobaan sidii kaalin lixaad leh uga qayb qaadan lahaayeen in ay laga hirgeliyo deegaankaasi goobo waxbarasho iyo sidoo kale goobo caafimaad. dadkii ka soo qayb galay munaasabada xarig jarka ayaa sidoo kale ka codsaday hay'adaha caalamiga ah in ay ka qayb qaataan dhamaystirka ceelkan oo imika kaliya qaybtii biyaha laga keenay loona baahan yahay in loo dhiso qaybihii kale sida haanti iyo goobihii kale ee ceelku lahaan jiray. waxaanu adduunweynaha iyo hay'adaha caalamiga ka codsanaynaa inay naga taageeraan inta dhiman noogu daraan waastooyinka sida haanta biyaha sida lama soo lagu xabiraa sida guriyaha sida motor cusub iyo bamkiisa wax maanta xafladan waxa lagu furay ceelka dalsan baa lagu furay waa maalin wanaagsan iyadoo hawshaas ay ka qayb galeen xildhibaanka Cabdulaahi Yuusuf ganacsato odayaal mas'uuliin culmoodiin hadee xaflad wanaagsan weeye ceelkana saasuu ku furan yahay absirta Allahna waafajiyo wixii khayraad ah oo muslimka ku fiican Allahna waafajiyo waxaa halkaan munaasabad ballaaran ku soo jeediyay oo furtaan ceelkan cusub oo dalsan degmada dalsan hadda macnihii ku magacaaban oo aasaasayno munaasabadan ku soo dhigay oo loogu soo macnihii xafladahan loogu soo yeeray ganacsadayaal xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf Shuuke Agarog Cabdidaahir Maxamed Xareed waan horta halkaan mahad ballaaran ugu soo jeedinaynaa waxaan ka codsanaynaa jaaliyada dibadda hay'adaha caalamiga iyo samafalka guud ahaan waxaan uga codsanaynaa sida ay wax u qabteen oo ballaaran dhamaystirka ka dhiman oo samafal ahaana gurmad ballaaran baan uga rabnaa ay ugu baaqeen sidoo kale bulshada
ku nool gobolada dhexe dalka Soomaaliya inay ka faa'iideystaan isla markaana cid kasta imika ay deegaankaasi imaan karto ayna ka qayb qaadan karto horumarka laga sameeyo deegaankaasi. Bashiir Yuusuf Nadaara, TV-ga caalamiga Royal waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Caabud Waaq.